بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها ميل كستو دنيا دافيه ذيك سكنتين حل كستا يدين تهي خير إيه بركة إيه بش يعني دين رجينيا وان دين سودو إنيا سودو وهذا بان دين ليه هاي منكم من كني واي هاي سمرتيننا ما شاء الله تبارك الله. رمضان مبارك بان idin leeyahay waqtigu haynoo samaado dhammaantiinba meel kasta inuu dunida daafaheeda kaga kala noolahay waqtigu haynoo samaado biidmillaahi baari cibaadada iyo maaragtay sadaqada iyo soonkaba iyo wax walbana ilaahay oo wanaagsan ilaahay haynaga aqbalo wixii xuna ilaahay haynaga xijaabo oo haynaga najeeyo soo dhawaada minankini waaye haysmartiyeynina subscribe-ka iyo share-ta iyo arrimaheeni isla garanaagina deeyaa xaggina dhankina weeyaan ani waan idin soo tabiyaha igu ogaada inaan soo tabiyay idinkana yaa dee waa idinka ah intaasaad maasha allah tabaarakallah ay maaragtay marti idinka ahay intii hore iigu siisay subscribe-ka meel fiican buu maraya aad baan idinkaga mahad celinaya jazaakallahu khayr wa jazaa baan idin leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro inta kale maxay ahayd inaan siin doontana waxaan leeyahay iyaguna ilaahay khayr ha idin siiyo waa idin sugaynaa waa mahadsantihiin sidii caadadu inoo ahayd waxaa maaragtay channelkan uga baranay ila tali qisas iyo waxyaabaha kale ee maaragtay nolosha ku gadaaman maanta waxaan inoo hayaa qiso yar oo aan koobnayn run ahaantii qisada waxaa ii soo dhibatay gabadh yar oo maxay ahayd Soomaaliyeed gabadhaasi waxa ay igu tiri ama sida ay maaragtay qisada igu soo qortay haddii aan idin bilaabo waxay tiri yartaasi waxaan ku noolaa wadamada Afrika kamid ah waxaan ahaa gabadh yar oo hooyadeed iyo aabaheed la joogta ardayad baan ahaa iskuul ku jirta maalin maalmaha kamid ah aniga oo ku jira iska wareegaya baraha bulshada ayaa Facebook-gaygan iskaga jiroon iska maartay iskaga maaroobayay inan baa ii soo qoray assalaamu calaykum aniguna waxaan u qoray bay tiri wa calaykum assalaam su'aal bay weydiiyay wiilkaasi wuxuu igu yiri maxaas baa tahay mise gabadh baa tahay waxaan ku yiri walaalkayo gabadh ayaan ahay walaal masbaran karnaa haa waa isbaran karnaa waanu isbaranay barasho wanaagsan baa ka dhacday goobtii iyada ahayd adigu muddo waanu maaragtay sheekeysanaynay si walaaltinimo ah ayaanu sheekeysanaynay sidii walaaltinimo aanu sheekeysanaynay isaguna ila soo hadlayay anaan la hadlayay xiriir fiican maaragtay uuna dhex maray oo aad u qurux badan inanku inan wanaagsan oo dee maaragtay qiimiyo qaayale buu ahaa kadib waxay tiri sheekadu sidii noogu ahayd ee noogu qurux badnayd baa anigii lay taabtay waxay tiri anigii baa maaragtay arrin jacaylihii i taabtay arrinkii jacaylkaa markuu i taabtay waxaan is arkay anigoo maaragtay inankii danaynaya telefoonkiisii ku haadaya habeen barhkii u kacaya la hadlaaya inankuna wuxuu joogay qaaradda Yurub wadan ka mid ah ayuu joogay waqtigaygu kala bedelaabay tiri run ahaantii isaguna dee wasa garanayna Yurub iyo Afrika waa kala bedelantahay waqtigu waxay tiri alarm clock baan ku buuxsadaa saacada qaylisa ayaan maaragtay ku buuxsadaa markaan isiraahdo shaqadii buu ka soo baxay waan la hadlaa isaguna sidoo kale wuu la soo hadlaa adiga xaaladaydii waxay tiri marba marka ka dambaysa waa la igu soo kordhaa waxay tiri anigoo la dhex maray baan is arkay oo la de maaragtay inankii uu danaynaya oo daba jooga baan is arkaabay tiri inantii waxay tiri maasha allah waan yaabanahay maxaalkee lagaa qaaday waan iskantarooli kari waayey almuhiim inankii wuxuu ii soo bandhigtay bay tiri inaan maaragtay dee aan guur arrin barashadii guurka u gudubto oo ay dhaafto tii dee guudee walaaltinimo waayahay baan ku uri dee waaba meelaan rabi roob ma igu duwayey waan la qaatay bay tiri waxay tiri jacaylkii markii aanu isla afgaranay ee meel isla dhignay inankii aniga way tiri dee wuu igu sii laba jibaarmi waxay tiri gebigaygiiba allahayaay waxaa ka dhacday dee waa la ii adimay axadii sidaan ahayd heestii waa la ii adimay axadii sidaan ku eegaye ayay ka dhacday waxay tiri inantii halkaasun baan eegaya telefoonkan baan ku xidhanahay war ma hayo adduunyo ma hayo maskaxdaydiiba waxay joogtaa inankan bay dul saaranta la joogtaa waaban guuri qolfigaygun baa joogaa gurigayaga laakiin maskaxdaydii iyo qalbigaygii iyo qulubtaydiiba inankaasay la nooshahay waxay tiri sidii u ahayn oo isula dhacsanayn maasha allah tabaarakallah aan ku jiray aan guur ku heshinay inaanu isguursano oo de halkaa isku calfano oo ama de anigu aan u tago ama isagu ii yimaado meel uu nolosha ku midowno ayaa waxay tiri
inankii unbaa isbedel degdegi ku dhacay. isbedel degdegi markuu ku dhacay, hadalkii buu yareeyey, telefoonkii buu yareeyey, si kasta waxay tiri step by step adigu hadalkii oo dhan waan yaabay bay tiri. anuunbaa wacaya maxaa kugu dhacay walaalkayo, maxaa kugu dhacay, maxaa say waxu jiraan dee telefoonkii waad yareysay iyo xiriirkii iyo sheekadii iyo hawlihii oo dhane. waa ka yidhi waan shaqeeyaa, mashquul baan ahay walaashayay, dee markaasas igu cudurdaar. hayi bay tiri, naf wax jecelo laa dhibay bay tiri, aniga wax kastoo laygu qanciyo qaadataan hay bay tiri. iska garaacay aniga uun markaa waan garaaca un, anun baa iskala hadla oo telefoonu dira oo la hadla oo mar walba. waxay tiri dee sheekadii ana waan garaacidaydii baa sii badanaysa, isagana maxay de xiriirkiisii baa sii yaraanaya. yaab iyo amankaag baa ilaahay ii keenay bay tiri, maxaa dhacay. waxay tiri shag markii dambe automatically way istaagtay xiriirkiisii. waayahay markii xiriirkii istaagay, waxay tiri aniga gabal baa ii dumay, waxaan noqday goroyoy gabal kuu dhac. ina yaro wax baranaysa baan ahaa, iskuulkiis dhammaysay, heer jaamacadeed u gudbaysa, itixaam walba fadhiisanayo. waxay tiri itixaamadii markaan itixaankii galay, lee qalbi maqan baa itixaanka laleeyahay gale. itixaankan galaba waan dhaca failure baan noqday bay tiri completely. itixaamadii oo dhan waan ku dhacay. dadkii ay la yaabeen, ardaydii la dhiganaysay way la yaabeen, yacni qof dee firfircoon oo itixaamada ku baasta oo meel dee waxbarashadeedu aada u sarreysaan ahaa bay tiri. waxay tiri aqal madow baan ku xidhanahay, qalbiga ay jabay, meel aan iska soo qaadaba waan waayay. ilaahow diintaada u gargaar. sidii waxay tiri aan sidii uu ahaa aanu barooranayay, u bayhoofayay, u balanbalayay, aan anigu kacaakufayay. noloshaydii waxay tiri ilmo uunaan ku dhamaystay, hibitiqda aan hayo, indhuhu saa iyadii ilmadu iga daadanayso. ayaa waxay tiri maalin maalmaha ka mid anagoo galaaskii fadhinuun baan telefoonka yara isha ku yara xaday bay tiri. dabeedna isagoo online baan arkay, waxaan ku yara maxaa kugu dhacadii la soo hadli weyday, maxaad saas igu gelaysaa, dhibkaas aan kuu maray madaad og tahay, yacni saas dee imaad gasheen, dhibkan ku jiro ilaahay raxmaanka uunba og. walaalunbuu aada igu yidhi, laba qof oo kala fog nolol ma wadaagaan, jacayl islama qaadaan, ee sheekadaas iyo jacaylkaas iska ilow. waxay tiri ilmadan laba dhigay macalinkiiba yidhi heblaayo ilaa hadlayo, kor baan madaxa u qaaday. markaan kor madaxa u qaaday buu arkay dee anoo oohin dhex dabaalanaya, ilmada daadinaya. kabacdi wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay. waxaan sheegay markaan waayey, waxaan idhi qof reerka iyagaabaa dhintay, taasi baa laysoo sheegay, uu isoo fasaxay, gurigii baan imi bay tiri. sidaan hiqdaa u hayay ee u barooranayay bay tiri, gabal baas iga dhacay. waxay tiri maalin xitaa waxaa dhacday muraayad yar oo agtayda taalo jaban, intaa soo qaadaan isku sara, dhiiggii baan ka daadiyey. hadal dee fariin jacayla baan ku qoray. fariintii jacaylka ahayd markaan ku qoray ayaan u sawiro u diray. manaan sogeynba ilaa waxa aan qabanayo dee intaa maaragtay inaan jirkayga saray, inaan dhiiggii wax ku qoray, inaan sawiray. waxay tiri maan sogeyn. allaahuma salli calaa maxamed. sidii sheekadu ahayd bay tiri, aniguna aanu barooranayay, isaguna uu lahaa dee telefoonadiina iga xidhay. maxay ahaydeen aanu igama block imuu saarin bay tiri, laakiin dee waxay tiri yacni dee aanu ila soo hadlaynin, ina jawaabaynin, ta wax qoraysa iyo ta barooranaysa iyo ta bay hoofaysaaba waa aniga. ayaa waxay tiri maalintii dambe ayaan arkay inaan u saaran sawirka whatsappkiisa. waan la hadlay, gabadhan waa iyaba dee laysma ogi bay tiri, controlkii baan luusayey. fariinaan degdega baan qoray bay tiri, waayo gabadhan baan ku bay tiri, sidii dee naag ninka dee uu qabo oo dee aniga dee aan isku hubo oo ninka iga tashadayba. markaa dee waxbay wada bay tiri. gabadh walaashay weeyaan buu igu yidhi, sidii buu maxay ahayday gabadhan adigu dee waxaan ku yidhi gabadhani walaasha ama ahay, runta sheego, haddii aad gabadh nolol kale la wadaagaysay maxaad aniga ii lugoynaysay, maxaad beenta iigu sheegaysay, maxaad qalbigayga u xadaysay, maxaad jacaylka iigu abuuraysay beenta ah, maxaa kugu dhacay, ilaahay miyaadan ka baqaynin, qof islaamo loo soomo loo salaado ahayn. ninkii adigu inantii sidiibuu maaragtay ugu jaray feenfeenka. muddo dheer ka bacdi iyadu iska waxay tiri anigu sidii un baan u murugeysnaa, qalbigu ii jabayay, u barooranayay, been iyo balaayo igu akhriyayay, runta aanu haystay, beentii iyo balaayadu igu akhriyayeen runta u haystay bay tiri. ayuunbaa maxay ahayday dee halka ay dhigtay, iska soo kabtay, jaamacadaydii iska galay, itixaamaadkii dee mar waqti badan igu noqotay. adigu nolosheedii inanta yareed soo kabatay, maasha allah tabaarikallah, ma fiican tahay, meel fiican bay imika nolosheedu maraysaa. marka maxay ahaydeen
muddo dheer ka bacdi buu fariimay soo diray uu leeyahay iska kee cafi waan ku xumeeyey marka dee cafi qalbi jabay bay tiri waxba ma cafiyey adar gidaarada iska ilaali qalbi jabay waxba ma cafiyey baan ku yidhi bay tiri adigu cafis in badan iga soo dalbay sidii ayaan maaragtay ku kala hoyanay aniga run ahaantii waxaan ka qalbi jabay bay tiri nin Soomaaliyeed oo dambeba siday hadalka u dhigtay weeyaane inaan maaragtay nolol la wadaago markaas waxaan uga dan leeyahay bay igu tiri qisadaas oo aan maaragtay kuugu soo gudbiyey habaryaray in aad uga digto hablaha yaryar iyo kuwa waaweynba ee social media ama Facebook waxa loo yaqaano ka baranaya ragga maxay ahayday aanay dee meel ku nool yahay iyo wuxuu u sheega uun qaadanaya maxay ahayday halkaa dee gidaarka dabadiisa kala hadlaya telefoonkaasad kala hadlaysa qofku wuxuu ku sugan yahay warma haysid xaaladiisa nololeed warma haysid maxay ahayday maskaxiyan caafimaadkiisa iyo jimsiyantoona warma haysid qofka qoraal baad jeclaatay iyo hadal iyo qoraal maxaad ka taqaanaa maanta dhan haddaan telefoon kuu soo diroon kula hadlaayo waxba kama garanaysid saan u ekahay sidaan situationkayga ahay xaaladda gurigaygu yahay nolosha aan ku noolahay you don't know ma garan kartid marka hablow waxaan hablaha uga digayaa bay tiri inaanay ka baranin social media qof oo ay nolosha la wadaagaan oo jacayl ama naftooda siiyaan ama qalbigooda raaciyaan ayaan uga digayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee gabdhaha gaar ahaan ku yar iyo tu weyn baa run ahaantii imika kuwa ugu waaweyn baaba ugu fadal cadcado meelahan la isku barto maaragtay isku la barogi marka iyaga laftirkooda waan uga digayaa bay tiri aniguna waxaan ku darayaa tuyar iyo tuweynba waan ku xoojinayaa inantaa yare maasha Allah maskaxda badan le garatay dhibkii ay martay inay uga digto walaalaheed kuwa dhali kara iyo kuwa la simanba uga digtay ana wax ku xoojinaya fikradeeda iyo hadalkeedaba Facebook meel la iska barto maaha Facebook maaha meel qof aad ka barato oo nolol la wadaagto oo aad siisid xitaa nolol wadaago haba dambeeye aad noloshaada siisid intaasoo kuna qof baa xaggaas soo fadhiya qof kastaba ku soo teergareynaya mid xanuunsanaya ku jira xanuunka allaaba keene oo la iskuma caayee dee xanuun naftiisa dayacay baa ku jira waa wax qof kastaba awoodi karo horta qurba jooga inuu Facebook furan karo even kuwa Afrika jooga waa wax yar oo fudud oo qofku awoodi karo inuu furan karo inaydan rumaysanin waxa idin leeyihiin qof aydan garanaynin oo ehelkiisa garanaynin oo aqrabkiisa garanaynin oo noloshiisa garanaynin habla yaryar iyo kuwa waaweyn toona inay naftooda siiyaan maaha wax kasta kaga soo bixi kara inay naftooda siiyaan maaha inay qalbigooda siiyaan maaha inay maaragtay halkaa shukaansi la qaada dhigaan oo de hadhowtana marka qofkii albaabkiisii xidho dee qalbigu jabo cidla keligii aqal mugdiya ka dhex baroorto anigu idinkulama talinaya hablow waanan idinka digaya walaalahayow waxaan nafteeda la jeclahay baan idinla jeclahay marka aan isjira meel kasta aad joogtaan gaar ahaan hablaha yaryarin haysa sii jiraan islaan weyno waba iska soo kaban doontaayo dee jabka waxba ma leho hadda yara qiroto ayaa caadi bay iska noqon doontaa laakiin inan yarin adduunka waxba ka arago qalbigeeduba fresh yahay oo nolosha cusub tahay 17 jir ah yacni qalbi jabka ku dhaca waxa laga yaabaa inay kaba soo kaban weydo oo moraal jabto oo nolosheedaba halkaa maaragtay ay ku baabado marka habla yaryarow isjira habla waaweynowna isjira inamada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meel kastaad joogtaan hablaha beenta ka daaya waa hooyadiin oo kale waa walaashiin oo kale nina ma jecla inantooda in been sheego balanbaliyo nina ma jecla in hooyadii oo iska single mother oo maxay ahayday iska still yaro ki garaynaysa in maaragtay uu maxay ahayday in been sheego ku ciyaaro waa idinkoo kale sida walaasha iyo hooyada iyo inantaada iyo in adeerta iyo in abtida aad ugu turayso ugu tura hablaha kale idan garanaynina ayaan idin leeyahay ugu tura meel kasta joogtaan ilaahay ka baqa hablaha been ha u sheegina hablaha yaryar been ha u sheegina haddaydan guursan karaynin haddii aad maxay ahayd markaa noloshaada aad ku jirto runta u sheeg waxba ha ka qarina been ha kula haasaawen inaan idin leeyahay habar yar idinkuna hablaha inamada yaryarow habar inamadeedo kale aad tihiin marka habar yar waxaan idin leeyahay been hablaha ka daaya been noloshiina runtaa u sheega hadday idinku raacaysana ha idinku raacdo haddii kalena ha idinkaga tagto idinkuna nafsi dhigan maysaan inantaa yare islaameedna dhibi maysaano maaragtay dee adhexda ka jabin maysaan intaasaan idinkula dardaarmaya sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu